Maraykanka iyo Ruushka ayaa isku diyaarinaya dhagxaan ololaya oo samaawaadka ka soo wajahan waqti aan la saadaalin karin. Ruushka ayaa sheegay in buuraha hoostooda uu ka qoday godad gabaada oo lagu xereyn karo 100,000 oo qof. Xaggana Maraykankuna dhistay 150 saldhig oo dhulka hoostiisa oo mid ka mid ah laga qoday airportka Denver hoostiisa. Culimada sayniska jiitay ee xidigiska ayaa ishaaraya in samaawaadka uu ka soo wajahan yahay meero wata dhagax xidigyo ololaya iyo weliba dhagaxaanta hawada ee haabta oo magaciisana lagu magac daray meeraha X. Haddaba saamaynta arrinkan ayaa durbadiiba laga dareemay dhulka laynu ku noolnahay korkiisa, iyadoo rukunka shucaaca magnetku uu sababay dhulgariiro aan horey loo arag, volkaanooyin ama buuraha oo qarxa badaha oo fataha, isdabamar ku yimaada loolka iyo dhigaha dhulka, iyo weliba janjeersi ku yimaada qulqulka wareega dhulka. Reer galbeedka ayaa mar walba wadnaha farta uga haya halaagii ku dhacay qoomkii nebi nuux, iyadoo doonidii nebi nuuxna laga helay buurta Hararaat ee Turkiga korkeeda. Haddaba arrinkan ayaa qarsoodi laga dhigay iyadoo laga cabsi qabo in argagax ku dhaco bulshada reer galbeedka, waxaana si qarsoodiya loo khaarajiyey culimmadii arrinkan ka shiftay sida Alain Sondage, Brian Marsen, Michael Judrick, Bron Harris, Richard Grow, 3 xubnood oo ka tirsan kooxda GPL ee NASA oo guddigeed ku dhintay shilal iyo khaarijin qarsoon. waxaa kaloo la garan waayay qaabka ay u dhinteen Agent Schumacher, Robin Harinto, Rodney Mars, Quajiro Morito iyo Stephen Rawlings oo guddigooda ahaa culimada waaweyn ee xidigiska. waxaa kaloo la sheegay in arrinkan ay og yihiin madaxda waaweyn ee dowladaha reer galbeedka kuwooda ugu waaweyn iyo weliba Vaticanka oo isna samaystay naaliyad lagu eego xidigaha oo igu magacdareen Iblis oo ku xiran dayax gacmeed ay u samaysay shirkadda Lobby Martins ee gobolka Nevada. waxaa fulinaysa mashruuc qarsoodi oo lagu magacdaray Kerigma, iyadoo Vaticanku raadinayo bal xiriirka ka dhaxeeya waxyaabaha ka soo cusboonaaday samaawaadka iyo weliba ishaarooyinkii nabawiga ee diimihii. haddaba duufaano, dhulgariiro iyo buuraha oo qarxa iyo badaha oo fataha ayaa ku sii xoogaysanaya dhulkalaynu ku noolnahay, waana arrin astaan u ah waxyaabaha soo socda. intiinii 40 sano ka hor noolayd waxaad u soo joogteen in cadceedu uu ahaa jaalle ama huruud, hadda waxa uu isku bedelay cawlaan, waxaana sabab u ah dahaarka dhulka oo khafiifay. haddaba ilaahunbaa goorta ay noqonayso dhammaadka dunidan, inkastoo qur-aanka laynoogu sheegay qaabka uu dhacayo qiyaamuhu. haddana barila fiirso waxaa dhici kara haddii mid ka mid a dhagaxdan uu ku dhaco cadceedda ama dhulka. barila fiirso.